waa idin wada salaamaya dhammaantiin sida wada dhantiin galab wanaagsan intay galab u tahay intay habeen u tahayna habeen wanaagsan. waxaa geeriyooda saacado ka hor Michael K. Williams kaas oo ah nin fanaan haddana actor filmaanta sameeya. ninkan da'diisa ayaa ahayd 54 jir. wuxuu ku geeriyooday New York khaasatan xaafadda Brooklyn waxa waaye xaafad ay ku badan yihiin dadka madowga wuxuuna ku dhex geeriyooday gurigiisa. geeridiisa ma cadal balse gurigiisa markii loogu jabiyay ee la galay waxaa la arkay meedkiisii darooga meesha taallo waxayna dadku qiyaasayaan in daroogadaas ay sabab u ahayd geeridiisa. Michael waa kuma Michael wuxuu asalkiisa ahaa sidaan hore usoo sheegnay nin fanaan ah haddana actor filmaanta sameeyay laakiin wuxuu ahaa dadka shaydaanka caabuda uuna ka baxay. dadka shaydaanka caabuda xeer ku yeelan waxay tahay qofkii meeshaas ka baxo inta badan waa la dilaa sida ay dadku filanayeen wuxuu ahaa nin la dili doono. wuxuuna bilaabay dadka madowga inuu dhiirigeliyo waxyaalaha qaar ay isu ujeedin farta ugu muuqo. sida caadada soo jiraantaana waxay tahay dadka madowga ah dadka ka dhex muuqda inta badan waa la dilaa ama waa la sumeeyaa. balse gabagabada daawada adiga shakhsi ahaantaada maxay kula tahay dilkan ninkan maxaa sababi karaya is leedahay hoos inoogu soo qor. waxaa kaloo noo muhiima sheerta caatada ah waa ku seexanaa waana ku shaqeynaa. magacayga waa Cabdirsaaq beejka iga daawanaysan waa ina dulqaad weyne barnaamij midkan lamid intaynu ku kulmi doono sidaa nabadgelyo. assalaamu calaykum.